بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين maanta taariikhda ku beegan tahay 24 February sanada 2026 waxaan halkan u soo istaagay inaan idin la wadaago warbixin ku saabsan magacaabid xubnaha golaha wasiirada ee dowladda Koonfur Galbeed xeer madaxweyne 154 kuna saabsan magacaabid xubnaha golaha wasiirada ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen markuu arkay dastuurka dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobka kontonaad farqadiisii labaad saddexaad iyo shanaad markuu tixgeliyay baahida loo qabo dardargelinta howlaha dowladda iyo ahmiyadda golaha wasiirada ee dowladda Koonfur Galbeed qodobka 58aad farqadiisii koowaad xarafkiisa a markuu tixgeliyay in ay lagama maarmaan ay tahay in jagooyinkan loo magacaabo dad waay aragnimo u leh si loo ambaqaado howlaha hortobinta u leh xukuumadda markuu tixgeliyay aqoonta iyo waay aragnimada mudanayaashan jagada soo socota loo magacaabayo wuxuu soo saaray xeerkan qodobkiisa koowaad magacaabid xubnaha golaha wasiirada ee dowladda Koonfur Galbeed laga bilaabo maanta taariikhda ay ku beegan tahay 24 February sanada 2026 wuxuu madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen uu u magacaabay xubnahan in ay ka mid noqdaan golaha wasiirada ee dowladda Koonfur Galbeed Maxamed Isaaq Usmaan Fanax ayaa loo magacaabay in uu noqdo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib-u-heshiisiinta dowladda Koonfur Galbeed Xasan Cali Maxamed amar dambe ayaa loo magacaabay in uu noqdo wasiirka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamuud Maxamed Khayr ayaa loo magacaabay in uu noqdo wasiirka wasaaradda horumarinta reer miyiga iyo adkeysiga ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ugu dambeyn xeerkan ayaa dhaqangal noqon doona marka uu siixo madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen sida halkan ku xusanna waa uu siixay wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh